ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janaalka dabagalka wararka waa 12 bisha 7 sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warka janaalka dabagalka wararka waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirka madaxda maamul goboleedyada ee ka soconaya magaalada Dhusamareb iyo laba qodob oo isku raaceen madaxda ka qayb galaysa shirkaasi Itoobiya oo ku darsatay 18 kilomitir oo kamid ah dhulka Soomaaliya faahfaahin ka soo baxaya ciidamo wasiir ka tirsan dawladda federaalka ilaalow ahaa oo qof shacab ku toogtay magaalada Muqdisho madaxweyne waare oo arin la yaab leh ka sheegay canshuurta Muqdisho iyo khudbadiisa oo noqotay tii ugu xiisaha badnayd khudbadaha ay jeediyeen madaxda maamul goboleedyada Somaliland oo warka soo saartay safarka danjiraha Shiinuhu oo ku tagayo Hargeysa ciidanka Puntland oo lagu eedeeyay in dad shacab ah ay ku laayeen magaalada Galkacyo iyo qaybta dambe warkeena oo idinku soo gudbin doono warbixin ku saabsan diyaaradii hubka siday ay iska diiday dawladda federaalka Soomaaliya iyo xiisadda Masar iyo Itoobiya inta si saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka hadii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino muuqaalka laagsaar waa inoo muhiim qaybta hoose ee commentiga nagu wadaag aragtidaada shargare oo gaarsi saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalka dabagalka wararka haatana warkiyo fitsana laba qodob ay isku raaceen madaxda maamul goboleedyada iyadoo qodob ay wadato Puntland madaxda maamul goboleedyada ee shirka kaga furmay shalay magaalada Dhusamareb ee caasimadda Galmudug ayaa isku waafaqsan laba qodob oo quseeya doorashooyinka Soomaaliya iyo qodob kale oo Puntland la gaartahay khudbooyinkii ay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ka jeediyeen furitaanka shirka wadatashiga ee Dhusamareb ayuu mid walba ku cadeeyay qodobka koowaad oo ah inuusan raali ka ahayn dib u dhac ku yimaado doorashada dalka iyo muddo kordhin loo sameeyo dawladda madaxweyne Farmaajo qodobka labaad ayaa isna ah inay doonayaan wadatashi in laga galo qaabkay noqonayso doorashada la qabanayo maadaama doorasho qof iyo cod ah aysan suurtagal ahayn ay doonayaan in laga arinsado waxa lagu bedelayo si doorasho xor iyo xalaal ah ay u dhacdo madaxweynaha Puntland ayaa aaminsan in meesha laga saaro guddiga doorashooyinka qaran ay hogaamiso Xaliimiyay lana dhiso kuwa cusub oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed kuwaas oo qaban qaabaya doorashada soo socota afarta madaxweyne ee Galmudug Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaan weli go'aan ka gaarin arinta guddiga doorashooyinka Xaliimiyay waxaana madaxweynaha Puntland aad ugu dhow madaxweynayaasha Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo taageersan in aan doorashada lagu aamini karin guddigaasi shirka waxa uu hadda u gudbay wada tashiyo kala gaargaar ah iyo kulamo guud oo looga doodayo arinta doorashada dalka waxaana lagu wadaa in uu socdo dhowr maalmood dhinaca kale Itoobiya ayaa ku darsatay 18 kilomitir oo kamid ah dhulka Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Axmed Jirde oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa kulanka baarlamaanka ka sheegay in dawladda Itoobiya ay gudaha u soo gashay dhulka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan xildhibaan Jirde ayaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya weydiiyay qorshaha wasaaradda difaaca Soomaaliya kaga yaala in calanka dawlad kale si awood looga taago gudaha Soomaaliya xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa wasiirka gaashaandhigga weydiiyay halka laga kontroolayo xuduudda Soomaaliya maadaama ay gudaha u soo gashay Itoobiya gobolka Hiiraan wuxuu leeyahay xuduud wadanka Itoobiya wuxuuna kala leeyahay xuduud ahaan jirta xuduud beenaad feer waxaan la soconaa feer ilaa 7 kilomitir meel la yiraahdo Aabaaley oo Soomaali leedahay oo gudaha Soomaaliya waxa ka taagan calan 3 usbuuc ka horna waxaan ka warqabnaa 12 kilomitir oo tii hor lagu daray taqriiban 18 kilomitir oo gudaha Soomaaliya ah in ay Itoobiya balaaninayso inay gudaha u soo gasho su'aashaydu waxay tahay marka xagee laga geynayaa meeshaas waxay ka mid tahay meelihii xuduudaha ahaan jirtay war ama ka haysan xageesa qorshaha aan dhageysan su'aashii xildhibaanka markuu hadda la dhageysado go'aamaysan ha warkiga wuxuu ku dheeyahay xuduudii 18 kilomitir baa gudaha loo soo galay wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiirka amniga iyo xuduudaha hadda laga hadlayana way fadhiyaan waxaan rabaa in ogaado xagee la dhigayaa immigration officerska ama xuduud laga kontrola hadii 18 kilomitir gudaha loo soo galay waxaan idin xaqiijinayaa taqriiban 7 kilomitir
tuulo ku taallo oo abaali la yidhaahdo oo Soomaali gudaheeda ah calan Ethiopian ah waa tahay saaxiibayaal waxaad nagala socotaan channelka dabagalka wararka waxaan markan idinku wareejinayaa wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo sii anbaqaadaya faahfaahinta wararkeena kale waad maasantahay daawadayaal halkan waa channelka dabagalka wararka haatanna markaan sii anbaqaadno qodobada warka channelkana ciidamo wasiir ka tirsan dowladda ilaalo u ahaa ayaa qof shacab ah ku dilay gudaha magaalada Muqdisho askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qof shacab ah waxa uu ku dilay wadada Maka al-Mukarrama gaar ahaan waaxiga daarta Trebiano Maxamed Cabduqaadir oo ka tirsan shaqaalaha maqaayad lagu magacaabo Saytuuni oo ku taala Muqdisho ayaa lagu dilay qaybta Trebiano ee wadada Maka al-Mukarrama sida goobjoogayaal ay xaqiijiyeen الله ونحرسته مرحوم كان أيا وحا وتجارير أو أنو الراحة وحا وندب سعودي جديد أسيد الله شيء لقو قلبنا يوزير كعدالة دوسماريا عسكري قديلك جست أيا سرنا جاري نوع عد بلاه لو يقانو أو وزير كعدالة لقو إلالينا سيد ضدك ماشي جوجين حقيقيين وحنا عسكري وكشكية جاري جنير الله شيء إنه كسر دوادة كلنا يد وزير كدمنا حبدي وكوريدي أيا مرحوم كقول عدي gaarigii cabdibilaha ah iyo sidoo kale gaarigii nooca aan xabada karin oo isla socday ayaa socdaalkooda iska sii wateen waxaana dad shacab ah ay goobta ka qaadeen marxuumka meedkiisa ciidamada dowladda ayaa dilal bareer ah waxa ay u geystaan dadka shacabka ee Muqdisho ku nool kadibna waa iskaga tagaan meedkooda geesta kalena madaxweyne waare ayaa arin la yaab leh ka sheegay canshuurta magaalada Muqdisho iyo khudbadiisa oo noqotay tii ugu xasaasneed khudbadihii laga jeediyay Dhusamareb madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa khudbad xiiso leh ka jeediyay furitaanka shirka wada tashiga ee madaxda dowlad goboleedyada uga furmay magaalada Dhusamareb ee gobolka Galgaduud madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo khudbadiisa ay ka duuneed madaxda kale ayaa uga hadlay arrimaha doorashada doorka Xaliima Yare oo gudoomiyaha ku meel gaarka ee doorashooyinka iyo maqaamka caasimadda Muqdisho ay hayaan haddaad fuundi guri u dirsato oo aad tiraa gurigan ii dhis oo ku yiraahdo muxuu ahay waxaan ku dhisayaa 2 usbuuc $10,000 ana kugu baxaysa ikhtiyaarka inaad aqbasho ina diidda adaa iska leh fuundi waxa kuugu male inuu kaala murmo arishan ku dhisaa dhagaxan ku dhisaa shaqadaas asagu male guddigaas hawshiisii waa qabsaday yaan la dhibin Xaliima Yare dhibka laga daayo talada annaga tashanayna maalinkii tala naga soo baxdo haddana ayagaan ku celinaynaa ama kii bedelan ku celinaynaa sideeda horta meel cidlaa in la iska qabsado oo la iska xigxigto ama la iska shakiyo waa gardarro qodobka ee ugu dambeeyo aan raba inaan ka hadlo waa gobolka Banaadir waa caasimadii wadanka waa magaalo aan wada leenahay waa dawladnimadeennii waa saldhigeennii waa halka quruxdeena iyo qaab darradeena labaduba ay ka muuqdaan in dadka xamarne arintaas waswaas badan nin aan saaxiibana hadda kor wuxuu yiri niyahow nin aad shirkad tihiin hadduu xisaabta ka leexleexdo warcaaw xisaabtii maxaa soo xarooday war bari nooga dhig hadduu xisaabta ka leexleexdo ninkaas qaablaawo waaye kala baxa in matalaada xamar iyo maqaamka xamar saacadda ugu dambaysa sidii excuse loogu sameeynayo biraa laga hadli saadan baa laga hadli kana laga hadli last minute ka la iskugu yimaado waa nasiib darro magaalada xamar waa magaalada canshuurta ugu badan laga qaado dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo shabaab marka la isku daro waxa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado $1 bilyan sanadkii waxa u dheer amni darro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dawladnimada iyo caasimadnimada nafteeda ku soo gaara matalaadu waa xuquuq qofka muwaadinka uu leeyahay meesha uu doonaba ha joogo Soomaali
dhammaanteen waxaa noo yaal inaan ka wada tashanno maqaamka magaaladan sida aan ka yeelayno inaan ka wada tashanno ummad meel degan oo badan oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay horaan u soo aragnay gobollada koonfureed iyo gobollada waqooyi markii la isku daraayay si niyad wanaaga ayay reer waqooyi intay dawladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen waxa dhanba in iyaga lagu wareejiyey ahayd waxba lagama tixgelin maxamed ibraahim cigaal oo raganimadiisa kula jooga alla joogay bas dawladdii markay soo burburtay salaamu calaykum ayadoo la dhihin haddana waa laga tashtay dawladaa la dhisay waa ka warqabtiin wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa hal shiroo dartood u baaqday ma jiro horaa looga socday nimankaasu inay goostaan oo goosashadooda ay ku adkaystaan ma garay u leeyihiin mise gar uma leh gobolka banaadir waa caasimaddii waddankoo ma goosanayso laakiin waxaa ka suurtagala idii sheegi waxaa ka suurtagala inay dhahaan soomaaliyey cashuur noqotayaa iyo amri darro noqotayaa iyo culays noqotayaa 60 sanaan caasimadnimada soo haynee culayska ha nalaga qaado meel kale ha la geeyo waxaa ka suurtagala inay dawladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dawladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiina oo dhibaataysan dawladu kor fuushay inuu noqdaa iyaa ka suurtagala waxaa ka suurtagala in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo arrinta banaadir waa ka xumahay in mar walba aakhiru saaca qolada ciyaarta maxay dhahan injury time in mar walba injury time-ka la iska warsado arrintaas waxa laga bedelo caasimaddaas waa wada leenahay aan wanaajisanno si aan raalli aan isaga nahanee maqaam aan ugu raadinno dhanka kalena Somaliland waxa ay war ka soo saartay safarka danjiraha Shiinaha uu ku tagayo Hargeysa xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay safar la filayo inuu danjiraha dalka Shiinaha ee Soomaaliya uu ku tago caasimadda Somaliland ee Hargeysa safarka danjiraha ee Somaliland ayaana daba socday xiriirka iyo heshiiska cusub ee kala saxiixdeen Somaliland iyo Taiwan kaas oo dawladda Shiinuhu ay si weyn uga carootay Shiinaha ayaana si adag uga hor yimaadeen xiriirka labada dhinac isagoona ku tilmaamay wax aan la aqbali karin isla markaasna xadgudub ku ah jamhuuriyadda dalka Shiinaha wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Faratoon oo arrinkaasi ka hadlay ayaana sheegay in ay soo dhaweynayaan safarkaasi isagoona xusay in wax saameena uusan ku yeelan doonin xiriirka cusub ee Taiwan wasiirka ayaana sidoo kale sheegay in markii ugu horeysay aysan ahayn oo safiirkan uu tago magaalada Hargeysa balse uu marar hore booqasho ku tagay Faratoon ayaana ka dhawaajiyay in danjiraha uusan ilaa iyo hadda la soo sameeyay xiriir toos ah oo ku aadan safarkiisa sida uu markii horeba safaradiisa ula soo socodsiin jiray midaas oo la filayo inay ka dhalatay xiisada uu ku tagayo Hargeysa safiirkan ayaana kulamo la yeelan doona madaxda ugu sareysa Somaliland gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi oo uu kala hadli doono mowqifkiisa ku aadan xiriirka Taiwan sida ay hore u baahisay dabagalka wararka xiriirka iyo heshiiska cusub ee Somaliland iyo Taiwan ayaana waxa si weyn uga hor yimid Soomaaliya iyo Shiinaha oo u arka xadgudub ka dhana maadaama aysan labada maamulba haysan aqoonsi buuxo oo caalami ah halka dawladda wadaya nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka wax garadka gaalkacyana waxa ay sheegeen in ciidanka Puntland ay laayeen dad shacab qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo ayaa beeniyay in weerarkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ciidamada Puntland ay la beegsadeen koox ka ganacsata waxyaabaha amaanka dooriya odayaashu waxa ay sheegeen in iska hor imaadkan ka dhacay xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo uu ahaa mid lagu beegsaday dad rayid ah oo halkaasi degnaa kuwaasi oo sida ay tilmaameen loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla markaasna khasaaro naf iyo maalba la gaarsiiyay sidoo kale waxa ay beeniyeen in kooxo khamriga ka ganacsada ay ku jireen xaafadda la weeraray ayagoona xusay in dadkii iska hor imaadkii ku dhintay ee ahaayeen culumo iyo aqoon-yahano xaafadda ku noolaa odayaasha iyo waxgaradka ayaa sidoo kale maamulka Puntland ugu baaqay inay jawaab iyo raaligelin degdeg ah ka bixiso wixii halkaasi ka dhacay si loo dajiyo dadkii eheladooda dib ku gaaray loona xaqiijiyo nabadda iyo xasiloonida magaaladaasi ugu dambeyntiina waxaanu eegaynaa warbixin ku saabsan diyaaradii hubka siiday oo ay diiday dowladda federaalka Soomaaliya iyo xiisada Masar iyo Itoobiya
diyaarad ka timid Masar oo sida xirmo hub ah ayaa la doonayay inay ka degto Soomaaliya bishii May laakiin 2,000 oo qoriga AK-47 qoryaha madaafiicda ridada qoryaha gunjiga leh baastoolado iyo hoobiyaal diyaaradda saarnaan lama dejin waa la joojiyay ayuu sargaal Soomaaliya oo sheegay wargeyska The Sunday Telegraph the UK sababtoo ah waxa laga baqay ayuu yiri in dowladda Soomaaliya ee lugaha la gasho muranka u dhaxeeya labada dal ee Afrika ugu awooda weyn ee Masar iyo Itoobiya waxa uu sheegay inuu arkay dukumeentiyo muujinaya diidmada dowladda Soomaaliya ee hubkan uga imaaday balse ma bixin faahfaahin intaasi dheer waxa ay muuqatay in dowladda Soomaaliya ay ku baaqdeen in Itoobiya ay u aragto in ay ku dhowdahay Qaahira sidaasina ay ku diido hubka Masar si kastaba dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay inay dhaxdhaxaad ka tahay xiisada labada dal waxa ayna diiday qaraaro ka soo baxay ururka jaamacadda Carabta oo ay xubin ka tahay kuwaas oo dhaleeceyn lahaa Addis Ababa Masar ayaa ahayd awoodda haysata Niil muddo kumanaan sano laakiin awoodda oo lala ekaaday ayaa keentay inuu qulqulka biyaha fogaado toddobaadyada soo socda marka xilli roobaadka la gaaro Itoobiya waxa ay bilaabaysaa inay buuxiso biyo xireenka ay dhawaan dhistay biyo xireenkan oo kamid ah kaabayaasha ugu waaweyn Afrika ayaa Itoobiya sii doona awoodda ay ku damiso tubooyinka biyaha Masar waxa ayna dalalka dariska ah ku qasbi kartaa in ay taageeraan muddo ku dhow 10 sano Itoobiya waxa ay dhisaysaa darbi dhirirkiisu yahay 1 mayl kaas oo 2 jeer ka culus taaladooda xuriyada wax yar ayuuna u jiraa xuduudda Suudaan mashruuca biyo xireenka oo loo yaqaano Great waa dhamaad waxa uu noqon doonaa biyo xireen oo koronto laga dhaliyo kii ugu weynaa ee qaaradda Afrika wuxuuna qaadaa 72 bilyan oo cubic meters ah oo biyo ah wuxuuna laabaya quwadda korontada aan xasilooneyn ee wadanka biyo xireenku waxa uu Itoobiya u yahay xamaasad qaran waa hadal dad xaasinimo loola dhaqmay qarnigii la soo dhaafay iyo tallaabo ay hore u qaadeen oo warshadeenta laakiin Masar oo dadkeedu yahay 100 milyan oo ku dhawaad dhammaantooda ku tirsan biyaha nadiifka ah ee wabiga Niil biyo xireenku waa khatar muuqata sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Masar saraakiil Masar u dhashay ayaana sheegeen in biyaha wabiga Niil oo yaraada ay uga sii dari karaan abaaraha wadanka isla markaasna oo wiiqi karo beeraha iyo biyaha hadda Itoobiya waxa ay qorsheynaysaa inay buuxiso biyo xireenkan heshiis la'aan toddobaadyadii ugu dambeeyay diblomaasiyiin iyo taxliilayaasha waxa ay soo saareen digniin ah in si degdeg ah loo helo qaraar nabadeed walaacooda si fiican ayuu u muuqdaa markii hore Masaaridu waxa ay soo jeediyeen hanjabaad ah tallaabo military iyagoo sheegay in Masar ay adeegsan doonto wax walba oo ay heli karto si ay u difaacdo amniga biyaheeda dad awood leh oo dowladda u dhow ayaana ku sii daray in dadka Masar ay dagaal ku baaqi doonaan haddii Itoobiya ay isku daydo inay wadanka gaajo ka dhigto ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaana ka jawaabay sanadkii la soo dhaafay waxa uu yiri ma jirto awood Itoobiya ka joojin karta dhismaha biyo xireenkan dalkiisana waxa uu soo safi doonaa ayuu yiri malaayiin rag darajo sare leh si ay u difaacaan ka sokow isku goodinta fursadda uu dagaalkan ku dhaxmari karo Itoobiya iyo Masar waa ay yartahay in ka badan 1 meel oo Saxaraha Suudaan ayaa kala qaybiyay labada awoodood Itoobiya ayaana u nugul weerar dhulka ah in cirka ay ka duqayso biyo xireenka waa tallaabo military oo aad suurtagal ugu ah Masar si kastaba taasi waxa ay saameyn baasan ku yeelan doontaa amniga gobolka Qaahirana ayaana ka heli doonta faa'iido muddo gaaban oo kaliya haddii Masar ay qaado duqeymo ka dhan ah biyo xireenkan maxay noqon kartaa faa'iidada muddada dheer xitaa haddii ay duqeymuhu noqdaan kuwa aad wax u burburiya Itoobiya waxa ay bilaabi doontaa inay biyo xireen kale ka dhisto Niil kadib 10 sano kadib Masar waxa ay mar kale wajihi doontaa dhibaatadii oo kale laakiin markan xitaa lama tashan doono ayuu yiri William oo ka tirsan ururka saxaradaha caalamiga ah wareegga labaad oo wada hadal ah oo ay dhaxdhaxaadinayaan midowga Yurub ayaa hadda socda maacadda cidda marka hore ka bixi doonto haddii aan heshiis la helin xiisada gobolka waa ay sii socon doontaa diyaaradda hubka u sida Soomaaliya oo lagu faahfaahiyay qoraallo dhowr ah oo ay heshay The Sunday hadda Masar ayay ku sii nagaa doontaa ayaana lagu soo gabagabeeyay warbixintan guud ahaan daawadayaal wanaginta warkii aad kala socoteen janalka dabagalka wararka fadlan haddii aan ku cusubtaan nagu soo biro subscribe sar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 saacan halkan ku baahino aragtidaada halka oo san ugu reeb muuqaalka share garee waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalka oo aad kala socoteen dabagalka wararka